بس- بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. halkan aan maanta dul joogno waa meeshii buundada Buur ay ka gooday oo dhammaan waa la wada yaqaanaa. waa webi Jubbo. Ilaahay dhibka ha naga saaro. Dhibka hadda noogu badan waa doomaha. doontii qofkii shacabka ah waxaa la yiri 10,000. markii alaabaa qaadaynaysidna waaba kasii daran waayo. wallaahi markaa wax la sheega ma laha oo ilaahay baa ummadiisaan u maqan. ilaahay baana ka rajaynaynaa in aan helno buundo degdeg ah, laakiin cid hadda noo maqan ma jirto. lacaga $50 waana laga arooriyay calaas qoys. haddana wax ka suura galay ma laha xataa in bulshada wax loogu sii qabto oo lacagii laga arooriyay doomo kale loogu sameeyo. hadda meeshaan aan taaganaa gobolka nagu dhacayo beertayda aniga wataas midaas waayo. waxaa laga yaabaa anaa ugu dhow dadka oo laamiga ku yaalo inaan waqti qaato 5 saacadood. dadka beeraha oo dhowr iyo 10 kiiloomitir waa ka daran yihiin, ardaydii waa ka daran yihiin. rafaad baan qabnaa. waa kuwaan doomaha hadda xoolihii lagu rarayaa xilli abaaraa lagu jiraa oo kuleel ah. waa u joodiin labadaas saasay u buuxaan. waa degmadan oo dhowr kun oo qof ay ku nooshahay oo u shaqeynaysa 3 doomood 4 doomood. waxa waaye baabuur baa mar degto. xoolihii meel kale ay ka caboon ma laha. waxaa u sii daran ardaydii iskoolaadka ahayd. waxaa laga yaabaa inuu cunuga 4 saac oo subaxnimo xilliga bareegi inuu iskoolkiisa tago. marka dhibku waa iska badan yahay. shacabkii gabdhihii masaakiinta xamaalinayay gedigaas kale laga imaanaya bayeed gedaa loo soo gudbayaa. dadka waxay u soo shaqo tagayaan gedo. qofkii maanta waxaa laga yaabaa inuu soo shaqaysto 20,000 10,000 ay baasha looga qaato. marka waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka rajaynaynaa midnimo inuu ilaahay na siiyo, mawaaqifaad ilaahay inuu na siiyo maadaama aan reer Buurdhuubo. ilaahay inuu na haleeshiyo inaan wax qabsan karno, waxna hagaagsan karno. waa isku filannahay. dad kale uma baahnin inaan isku gargaarnaan loo baahan yahay, laakiin cid noo gargaaraysa nooma muuqato. dhibkii iyo kuleelkii iyo rafaadkii shiddadiina way sii badanaysaa. marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inaan si degdeg ah noogu soo jawaabo. inta wax la weydiisto Allah ayaa waxa waaye ugu weyn, asaana wax bixiyo. waxaan kale waxa waaye baadil waayo. marka ilaahay baan ka rajaynaynaa waxaan rajaynaynaa barwaaqo insha Allah. wal billahi tawfiiq.